I don't know aniga hadda taleefankan computerka ii soo noqon doona videoga laakiin damn aad buu qurux badan backgroundkaas fun fact waxaan ku controlaya ka you see oh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واشكركم كل شيء فيديو عسوك صدوا هذا أصحابته سيتين واحد رجينا في عنتهين أفرح سنتهين قولي بقى عموما وحيابان راجي وحكم إذا حقيقة الشغلين فربنا وقعدت كوير هي أو فوتوغرافي وحيابان حديدة سيدو كل عدة نوجين توحنا هي أرضي وقت اللي كتا شعاطة sanadkii ugu dambeeyay that will be more confused marka hawluhu saas yar socdaan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidii ay dhaqso uga dhigi karaysaa editing-kaaga marka aad sawir doonayso inaad edit garayso aniga waliba ka hadlaynin markaad computer-kaaga aad dul joogto gurigaaga joogto laakiin loo ka hadlayo oo xoog saaraya smartphone-kaaga adoo isticmaalaya tusaale ahaan maanta waxaad soo martay meel qurux badan baad soo martay kadib waxaad aragtay meel yar oo يعني كعجيبسي صوركيدو واحد استري تليفونكاga degdeg wala soo baxo ama kamaradaada waad sawirtay dabadna waxaad doonaysaa inaad soo post garayso adigoon tusaalaan gurigiiba man sidee kuugu suurtagelaysaa dabcan waxaad doonaysaa inaad edit garayso taas markaa ayaan qodobkeeno markaasi ayaad uga dhigi karaysaa dhaqso editing-kaaga markaad soo qaado inta u edit garayso kadib aad soo dhigi karaysaa adigu waliba editing qurux badan sameynaya okay taa maadaama uu yahay base-keena video maanta waxa muhiim taana oo ah inaad sameyn karto waxa loo yaqaano Lightroom presets waliba inagoo isticmaalno Lightroom kan ka hadlaya ama Photoshop-ta sawirada badan maadaama aan ku hagaajiyo shakhsiyan laguna hagaajiyo inta badan Lightroom-ka adigoo isticmaalaya sidee ay dhaqso uga dhigi karaysaa dabcan way haddaba sawirka aad soo qaaday waxyaabaha ku keeni kara inaad dhaqso editing-kaaga aad u sameyn karto edit yar oo isku habaysan waa adigoo isticmaalo waxa loo yaqaan Lightroom presets kaas waa maxay waxa jiray video hore oo horaantii sanadkan soo dhigay oo khuseeyay Lightroom presets anigu aan leeyahay oo official 2020 Shakur Rashid edition ah oo aan soo videoga soo geliyay baa jira linkiga xagga hoose kaas oo ay ahayd meelaha 10 Lightroom presets ah dabadna qofku intuu soo koobi garaysto oo dabadna ku soo best garaysan sawirkii uu qaaday isagu marka haddaad weydiinayso Lightroom presets maxay yihiin waxa weeyaan setting Lightroom-ka la isticmaalay kadibna la save gareeyay adna inta dabadna lagu soo diray aad soo qaadatay dabadna koobi aad ka siisay dabadna sawirkaaga ku dul best garaysay macnaha waxay ka kooban yihiin waa layers kala dha iyo waxyaabo yar oo la isku dardaraya oo package ahaan loo save gareeyay kadib aad soo qaadanayso koobi aad siinayso Lightroom-kaaga aad ku furayso dabadna ku shubeyso dabcan labadaas waxay leeyihiin laba version bay leeyihiin mid waxa loogu talagalay PC-ga mid waxa loogu talagalay mobile edition-ka labadu waa isku mid adigoo sida anigu aan sameeyay adigoo isticmaalaya presets-ka gaarka ah ayaad marna computer-kaaga aad si gaar ah ugu install gareyn karaysaa telefoonkaagana edition-ka loogu talagalay aad soo qaadan karaysaa waa hadii available qofkaas uu ka dhigay waxyaabaha inoo qabanayaan presets waxa kamid ah marka koowaad horta waxay yihiin BSP yihiin qofka meel uu ka bilaabo ayuu yihiin qofku markuu doonayo inuu sawir edit garayo tusaale ahaan sawirkii markaad soo qaado inta waxaad soo qaaday xilli cadceedu ay xoog soo bright u taho kala soo qaaday kadib waxaad doonaysaa sawirkaaga midabyadan inaad sidooda ku ilaaliso cadceedo kale inaad macnaha aad soo madow ka soo yar dhigto ama aad brightness-ka faraha badan ka yareeyso waxyaabaha noocaas oo dhana
waxyaabaha ugu baysisan weeyaan markaad doonayso inaad tusaale ahaan aad sawir edit garayso ama meel madow aad ku qaaday waxaad doonayso inaad in yaroo leeda ku yar darto intaa dadku iska wada yaqaanaan marka waxay weeyaan meel uu macnaha qofku ka bilaabi karo oo dabeedna uu editingkiisa wixii intaa ka sii dambeeyo oo ku sii dardari karo kaladhada uu doonayo iyo nooca vibe-ka uu sheegayo sawirkiisu uu doonayo inuu soo qaado oo dabeedna ku dul edit gareeyo ayaa marka dambe timeanaysa laakiin marka koowaad waxay noqonaysaa qofkii base uu ku dul sameeyo sawirada waayahay marka Lightroom presets-ka haddii waxaa jira dad fara badan oo soo saaray way jiraan qaar anagu aan sameeyay waan idin sheegaya videoga haddaadan garanaynin hoos baaban linkigiisa dib idinku soo dhigi doonaa saad soo yara daawataan haddii marka ay presets-kayga videoga ku dhex jira aad u aragtay inay ku cajabin noqdaan waxaad tegi doontaa linkiga description-ka ka hooseeya videoga laftarkiisa kaas oo ay ku wada xusan yihiin dhammaan information-ka email-ada waxa ku xidhan bad la xiriiri kadib waad heli doontaa presets-kaaga waxay hayaan balmalaya 10 aan isku soo package gareeyay okay intaan kaga imaado intaas marka maanta waxaan rabnaa bal anigu sida sawirada markaan soo qaado si yaro degdeg ah ugu dhiggareeyo oo anigu isticmaalay waliba khaasatan presets-kayga qofku isagu xor buu yahay presets-ka uu isticmaalayo kuwa isagu samaystay uu samaysan karaan runtii qaar kale oo dadka soo qaatay sida aniga lasarkii waan u isticmaali jiray uu isticmaali karaa marka waxaan isla eegi doonaa marka koowaad saxaabay sidii ayaa sawirada anigu markaan soo qaado si yaro dhaqso badan oo aan waqti badan iga qaadanaynin aan u edit gareeyaa so ma doonayo film inuu dheeraado bal isla soo eegno so marka koowaad waxaan samayn doonaa telefoonkaad soo furi doontaa waxaad isticmaalaysaa Lightroom application-ka markaad furto waa yahay sida caadiga ah waxaad ku soo kuwan waxa weeyaan halkan imika noogu yaala waa presets-kii nooca ahaa waliba mobile edition-ka ahaa maaha kuwii PC-ga laakiin waa isku mid labadaba intanunba computer-kan loogu talagalay si gaar ah in loogu shubo oo way kala duwan yihiin marka aynu soo qaadno tusaale ahaan sawir aynu isku dayno balan in edit garayno aynu soo qaadan doonaa aan ku dhufano sawirku waa ka marka koobaad waxaan qaaday xilli gelin damba golden hour-ka aad arkaysaan muxuu ahaa xilli yaro light-ku isku yaro habaysan yahay golden hour-ka ay dangarin waxa la dhahdaa xilliga cadceedu dhacayso saacad ka hor iyo xilliga cadceedu soo baxayso saacad ka hor labadaba waa la dhahdaa marka xilliga ay cadceedu sii dhacaysay waan ugu qaaday sawirkan marka aynu soo qaadano presets-ka bal anigu aan inta badan prefer garanayo inaan ku edit gareeyo tusaale ahaan inta presets-ka ku wada jiraan oo dhaniba waxay sheegayaan vibe gaara xaalad gaara iyo dareen gaar ay sheegayaan mid aan ugu talagalay sunrise ay ku qoran tahay arkayso mid fall ay ku qoran tahay xilliyada guga iyo waxyaabaha noocaas ah dhulku isku bedelay cirku ka aan ugu talagalay summer shade-ka oo kale cadceedu xilliga xoog u jirto kale cadceedu ay tahay harsh amaba brightkeedu xoog u badan yahay aan isticmaalo oo yaroo macnaha shadows ku wada jiraan low light-ka sawiradeeda habeenkii xilliyada dambe oo kale la yara qaado marka cadceedu dhacdo afwan ayaan ugu talagalay kaasoo kale skyfall-ka laftarkiisu waa mid gaara oo intaba ka baxsan aan ugu talagalay laakiin kaladhada sida uu saturation-ka ugu kala dhigayo iyo golden hour-ka iyo kay ceeragaaba ka qoran tahay golden hour-ka marka imika sawirkan si kale haddii u fahanno xilli golden hour aan qaaday ama xilli cadceedu soo dhacayso marka either waa inaan isticmaalo ama sunrise-ka ama golden hour-ka sababtoo ah haddaad isticmaasho sawirda imika kay fall-ka ugu qoran tahay haddaan isiraahdo golden hour ka dhig casaan buu noqonaya waad arkaysaa mushkiladda dhici doonto marka waxaan soo qaadanaa ka golden hour-ka ugu qoran tahay ka markaad ku dhufato copy setting baad siinaysaa copy setting markaad soo siiso waad imaanaysaa sawirkaaga caadiga ahaa waad ku dul dhufanaysaa kadib paste baad imaanaysaa bang markuu saa marka hore noqdo uu casaankaa isku yara bedelo casaanka mid aan ugu talagalnay markii hore halkaa markaad taagantay haddaba ayay imaanaysaa qof kastaaba inuu editingkii ama Lightroom-ka uu waxyar ka yara yaqaano dabeedna marka waxaad samaynaysaa wixii adigu aad u baahnayd imika uu isku dheeli tiray sawirkii cadceedii layladkii waxaan oo dhan dib isaga saturation ka wada dhigay qaar hoos u dhigay oo waa city marka hore la soo sameeyay buu ahaa aadna aad ku paste garaysay marka halkaa marka taagantay ay noqonaysaa in adigu wax aad isku badbadasho oo aad wixii aad u baahnayn aad ka badbadasho anigu tusaale ahaan waxaan ka badbadali doonaa kale marka koowaad waxaan ku horeynayaa halka midabka color-iska dabeedna waxaan doonayaa casaanka faraha badan inaan ka yareeyo casaanka faraha badan waxaan uga yareeyaan karayaa ka hoos baan yara dhigaya yar as you can see in yar baa hoos u dhigantay huruudda oo kale in yar hoos u yara dhig sawirka saasaan ku qanacsanahay haddii wax kale aan ku dari karo clarity-gii uu leeyahay in yar baan texture-ka hoos u yara dhigi highlights-ka cadceedana in yar baan kusii yara dari doonaa oon hoos u dhigi doonaa okay waxay noqotay halka saturation-ka in yar baan ku darayaa in yar halkaas
waa ka marka hore before ka sawirkiisu saasoo ahaa after kiisana waa ka okay hadaba intaas kaliya uu kagama tagee waxaan sameeyaa sawirka markaan save gareeyo highest quality ku save gareeyo waliba uu save gareeyay waxaan tagi doonaa application yar oo aan isticmaalo loo yaqaan lens distortion wuxuu ka caawinayaa cadceedaha inaad ku dari karto xilliyada golden hour-ka ama ay cadceed soo jeedo kale choose photo badan sawirkii kiiban raadinayna markaa iminka aynu edit garanay waad ku dhufan doontaa sawirka markuu kugu yimaado waxaad dooranaysaa cadceedda maadaama xilligan ay ahayd xilli ay cadceedi sii dhacayso ama ay soo baxayso ka soo qaad waa in markaa cadceedii aan ku dari karnay aan ku sii yar qurxin karnay editanka aan ku qurxinaa markaa aan ku beegaya halkay cadceedu ay muxuu kaga beegan tahay jirida contrast kiiban dooran in yara contrast siin saturation in yar kala dari dhagba waka waan safarayna waan tagina sawirkii waka lens distortion kan tagina dabadna aan ku dhufano marka sawirka saas soo baxay marka hadda talaada doonaysan in Instagram taada aad ku import karayso waad ku dirto heli kartaa share badan karsan caadi ugu safir garan karaysaa soo marka hadda asxaabay waxa weeyaan editankiiga aniga noocaas soo faasiyay soo degdeg u yahay wax simple isagoo aan waqti aan ka qaadanin oo aad iyo aad u simple ayaad sawirkaaga aad ku edit garanaysaa sida ay u dhaqsaha badan leh adigoo isticmaalaya mobilkaaga dabcan mid ogsoono presets-ka waxa loo yaqaan Lightroom-ku marka aad soo qaadato nooc qof kasta aad ka soo qaadato sawirka aad soo qaadatay marka aad doonayso inaad intaad soo koobisato presets-ki dul dhigto aad soo qaaday adigu adibna ku beskareynayso hadda lagama yaabo sawirkaasi 100% saad doonayso inuu soo baxo sida anigu imkay u dhacayso kale waan soo dhadhaweynayay kadib markaan soo dhadhaweeyay meel yar oo base oo wax ka bedeli karo oo hawl far badan ay saf gareysay iyo time far badan iga bixi lahayn inta mid kasta zero ka soo bilaabayo in kaladada soo hagaajinayo in light ka soo hagaajinayo waxa soo dhanba ay marka hore ay dhameysay kadib meeshii yarada waxyaabihii saaidka ahaa ee dul maray sawirkayga ayuun baan qaar ka saaray qaarna markaas soo qaaday sawir dul dhigtada oranaysa goorma sawirkan kala qaada anigu ama goorma professional noqday good marka waxa soo dhanbay kugu dhici karaan labadaba wad la kulmi kartaa sidoo kale waxa jira wax loo yaqaano Instagram layout kaasina waxa weeyaan sawirkaagu waa nooc ma inta muddadii ugu dambeysay oo dhan waxaan sawirada u qaaday sidan oo kale golden hour oo kale taasina waa style gaar oo qofku uu sameesto waxa jira photographeradu waxay sameeyaan waxa jira in ay season kasta sawirada si u qaadaan tusaale ahaan seasonka barafka kala sawirka si ay u qaadaan sidoo kale waxay u qaadaan xilliyada autumn-ka kala sawirada si gaar ah u qaadaan sidoo kale waxa jira oo xilliyada samarka oo kale iyaga laftarkooda cadceedu ay soo jirto ay soo jeedo kale si fiican bay iyaga oo gaar ah ay u qaadaan dabadna markaas sawiradu si yar gaar ay isku leeyihiin marka imka aniga Instagram tiidana taalo kale waad arki karaysaa inay saw kala sarsareeyaan oo golden hour kan midada ugu dambeysay oo dhan aan u qaaday oo ay isku saarayeen marka layout kan waa lagu dadaalaa presets-kana waa la isticmaalaa marka presets-ka hadad u baahato oo kale kuwa anigu aan sameeyay marka halkan ku jirta email-ka xaq oo ku jira dhammaan information-kooda ku wada qoran yihiin waa la xiriiri doontaa marka hadad u baahato waad heli karaysaa marka insha Allah la xiriiro soo inta ay nooga kala fiidiyoona asxaabta I hope waxaan rajeynayaa inuu fiidiyogaasi idin anfacay mana garan karo talo tiridiis inta noqonayso waxaan doonayaa inaan aad soo gaabiyo waan eegi doonaa bal markaan edit garanay inta noqdo aad iyo aad mahadsantihiin soo markaa asxaabta fiidiyogan aad ka heshay make sure na thumbs up siiso sidoo kalena subscribe tiraada haddaadan ugu soo biirin oo fadlan ugu soo biir come on guys haddaad tahay qof xiiseeya photography waxyaabahan aad iyo aad buu ku anfici doonaa channelkan so make sure inaanay waxyaabaha aadka u quruxda badan ee soo socda aanay ku dhaafin intaan ay nooga kaada fiidiyogan aad badan mahadsantihiin waa sidaa video dambe is arkno peace